munaasabadda dib u howlgelinta naadiga madbacadda qaranka oo hoos tagta wasaaradda warfaafinta waxay ka dhacday Muqdisho waxaana ka qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalk ee Soomaaliya, mas'uuliyiinta xiriirka kubadda cagta, maareeyaha madbacadda qaranka iyo qaybaha naadiga uu ka kooban yahay. Gudoomiyaha naadiga madbacadda qaranka Cumar Maxamuud Nuur Mugabe ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay in mar kale naadiga madbacadda qaranka ay dib ugu soo noqoto horyaalka dalka Soomaaliya iyo qaybaha kale ee isboortiga dalka. waxaana balan qaadaynaa inaan si hagar la'aan ah ula shaqayn doono wasaaradda, ilaalin doonana nidaamka wasaaradda iyo dastuurka xiriirka. waxaan u mahadcelinaynaa xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta iyo kooxaha kubadda cagta siday nagu garab istaageen horumarka. Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Cabdiqani Saciid Carab ayaa dankiisa waxa uu sheegay in wasaaradda warfaafinta ay muddo dheer kadib ay howlgeliso naadiga madbacadda qaranka, arrinkaasina uu yahay mid wanaagsan oo ay ku faraxsan yihiin guud ahaan bahda isboortiga. haddana xiriirka kubadda cagta waxaan ballan qaadaynaa in aan wada shaqayn dhow la yeelno naadiga hadda dib loo soo aasay ee naadiga madbacadda qaranka, siinana talooyinka ku habboon ee wax ka horumarin karaan. waxaa xasuusantihiin in xilligii barisamaadkii ay dadku u yaqaanaan laakiin xilligii dowladdii 90 wixii ka horreeyay waddanku wuxuu lahaa 10 naadi, marna wuxuu lahaa 9 naadi, marna 10 uu lahaa, marna 9. ma jirin heer kala duwan. maanta waxaan leenahay heerka koowaad, heerka labaad, heerka saddexaad. xilligii hore ma jirin naadi hoos u dhacaya iyo mid kor soo aadaya, midna ma jirin. maanta waxaa jira naadi hoos u dhici doono iyo mid kor imaan doono. marka waxaan rabaa in ay xasuusino dadkii xilligii hore la socday kubadda cagta ee maanta dib u nooleedka ka qayb qaadanaya. ugu dambeyn wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yariso ayaa yiri tani waa taariikh dalkeenu uu leeyahay. wasaaradda waxaa ka go'an inay dib u soo nooleyso dhammaan taariikhdii lagu yaqaan naadiga ay si xoogna u taageeri doonaan dhammaan cid allaale cidii kasoo shaqaysay, gaar ahaan xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed, maamulka naadiga madbacadda iyo wasaaraddaba. anoo rajaynaya in kaalinteedii kasoo dhalaali doonto. isku aadka markaan fiiriyo wareeg koowaad waxaana lagu aadiyey Jenyo 25 marka iyadana Jenyo waa taariikh kale anaga noo leedahay oo sida Islaa u sheegay. waxaan rajaynayaa cayaartaasna inay noqoto cayaar runtii ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay ka bogan doonto. midda u dambeysana waxay tahay bahda saxaafadda sida Al-Cadaala u sheegay. wasaaraddu waa wasaaraddiini, naadiga madbacaddan waa naadigiina. Nuure Maxamed Cali, Universal TV, Muqdisho.